Hey, welcome back to our English lesson tutorial. Kusoo dhawaada muuqaaladii aan ka sameynaynay barashada luqadda Englishka. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa videogan waxa la yiraahdo verb to be. Verb to be waa mid ka mid ah sharciyada luqadda Englishka ugu muhiimsan aas-aasna u ah. Marka verb to be waa ficilka la yiraahdo verb horta waa ficil, to be ayaa la yiraahdaa marka. To be dan waa ahaansho, waa verb ah ka hadlaysa ahaansho. Marka keligeed ayay waxay sameynaysaa jumlad. To be dan yani be dan keligeed ayay waxay sameynaysaa, waxay isku xiraysaa subject iyo object. Ficil iyo ficil lagu sameeyaha ayay isku xiraysaa, ma fahantay? Marka keligeed ayaa maanta waxaan u baran doonaa sharci ahaan oo iyadoo ah oo ka hadlaysa marka leh waqtiyo kala duwan iyadoo la isticmaalayo ama English tenses marka laga hadlayo iyadoo la isticmaalayo xilliyo kala duwan. Marka qeybta ugu horeysa waa simple present markii loo isticmaalayo si verb to be ahaan markii lagu isticmaalayo. Marka verb to be sida waxay ka hadlaysaa ahaansho. Shakhsi ay inta badan ka hadlaysaa ama shay ayay ka hadlaysaa. Marka waxaan dhahnay meeshan bidixda ah geeskan xigta base of form waa sharciga ay ku dhisan tahay, waa sharciyada ay mataqaana isku bedbedesho. Marka koow waxaa dhahnay simple present, madax xiga waxaa dhahnay simple past, kan xiga simple future, kan xiga progressive form iyo kan xiga perfective form. Meeshan waa form, sorry, meeshan waa form. Marka waxaa dhahnay who marka Englishku wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo pronouns ama magacyada. Magacyadan marka waxay kala yihiin marka jamac iyo mufrad. Ma fahanteen? waa jamac iyo lid aan dhahnay. Marka waa I waxay qaadanaysaa marka to be di waxay isku bedelaysaa am ayuu noqonayaa marka verb to be. You waxay qaadanaysaa are, he iyo she iyo it waxay qaadanayaan is, we waxay qaadanayaan are, they waxay qaadanayaan are. Marka to be waa sharci, waa ahaansho ay ka hadlaysaa, ma fahantay? Marka verb to be waxaa la yiraahdaa sharcigan ahaanshaha ah ayaa la yiraahdaa oo ah am, are iyo is. Am iyo are iyo is marka waxaa la kala siiyaa ama waxaa kala qaato pronounska ama magacyada luqadda Englishka ayaa la kala siiyaa. Marka waxaa loo kala siiyaa am waxaa qaato I, you waxay qaadataa are, artan waxaa qaata wixii jamac ah, you waa idinka ama adiga, we waa anaga, they waa iyaga. Marka sidaa darteed waxay qaadanayaan wixii jamac ah are markii la joogo present. He iyo she iyo itna waxay qaadanayaan is. He waxaa dhahnay asaga, she iyada, itna waa xayawaan iyo waxyaabaha aan nooleyn waa iyada waa, ma fahantay? Laakiin waxaa loo isticmaalaa waa wixii xayawaan iyo wixii aan nooleyn. Ashyaada ayaa loo isticmaalaa. Marka markii la joogo simple pastna isla pronounska ama magacyaladii sidooda ay usoo noqonayaan, laakiin waxaa inta iska bedelaya ficilka ayaa isbedelaya. Ficilkii to be ayaa wuxuu isku bedelayaa oo are iyo am iyo isti ahaa was iyo were isku bedelayaan, ma fahanteen? Markii la joogo futurena waxay isku bedelayaan will be ay noqonayaan. Intaan formiga ah qaabka verbku isku bedbedelo, verbku isbedbedelayo
waa kan dhexda ah. Ma fahanteen? marka la joogo progressive formna waxa isbedelaya waa isla iyadii laakiin waxa isku bedelayaan being waxay isku bedelayaan. Perfect form marka la joogana being ayay noqonaysaa. tan maxay ahayd being, tanna being ayay noqonaysaa. marka sidaa darteed meeshan perfectiga ah iyo meeshan progressive formiga ah labadaba waxa weeye waxaa raacaya ficil caawiyaal kale ayaa raacaya marka verb to be sida hadda he's been unusual iyo it has been found. marka verb to be ga waxaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa badanaa wuxuu ka hadlayaa ahaansho, waxa exist ama waxa ahaansho ayuu ka hadlayaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa boos ama meel la joogo ayuu ka hadlayaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa aqoonsi ayuu ka hadlayaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa in lagu qeexo mataqaanaa tayo ayaa loo adeegsan karaa asiga sidoo kale marka la isticmaalayo. marka waxaan dhahnay tusaalaha marka example tusaale marka waxaan dhahnay qeybtan koowaad ee simple presentiga aan fiirino dhankan kore. waxaan dhahnay I am here, aniga halkan ayaa joogaa ama halkan ayaan ahay. You are here, adiga halkan ayaad joogtaa ama halkan ayaad tahay. She is here, iyada halkan ayay joogtaa. We are here, they are here, annaga halkan ayaan joognaa iyaga halkan ayay joogaan. marka intaan waxay ahayd waa present ayay ahayd. marka qeybtan dambe ee ku xigta simple passive ahna idii waxay isku bedeshay idii sida ay usoo noqonaysaa laakiin anti ay wax isku bedelaysaa was. ma fahanteen? you wixii jamcana weer ay qaadanayaan wixii oo keli ahna waxay qaadanaysaa was ama ay qaadanayaan was. marka sidaan ayuu u shaqeynayaa verb to be ga. intaan laguma soo koobi karo qaababka uu mataqaanaa verb to be ga u shaqeeyo. yani wax intaan kaliya lagu soo koobi kara ma ahan laakiin waa aas-aaska ama aasaaska grammarka luqadda English waa mid ka mid ah. marka waxaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa exist wax jira ayuu ka hadlayaa. ma fahanti? wuxuu kaloo ka hadlayaa aan dhahnay dhacdo dhacaysa ayuu ka hadlayaa. for example there is a difference, waxaa jiro farqi ayaa jiro. there is a problem, dhibaato ayaa jirta. sidoo kale markaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa dhacdo oo kale yani wuxuu ka hadli karaa there is a party tonight. sidoo kale waxaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa goob ama waxyaabahaas loo isticmaali karaa. she is at school, iyada iskuulka ayay joogtaa. he is at home. marka marna waxaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa yani wuxuu ka hadlayaa aqoonsi ayuu ka hadlayaa. waxaa ka mid ah he is a singer, asiga waa fanaan ama heesaa. marna waxaa dhahnay wuxuu ka hadlayaa tayo. she is a beautiful. marka wuxuu kaloo ka hadlayaa dhahnay sidoo kale waxaa ka mid ah tusaale waxaa noqon karaa this is dangerous, sababtoo wuxuu ku tusayaa tayada shayga ama quality ayuu ku tusayaa. marka verb to be ga marka intaan wateen sida ugu muhiimsan luqadda Englishka sida iskugu badbedelo marka verb to be ga uu leeyahay.
Web2b waxaan aanay simple present waa dhacdo maalin walba dhacda ama hadda jirta. She's here markuu leeyahay she is here markuu leeyahay waa halkan ay hadda joogta waay. Ma fahanteen? Markii simple past uu leeyahay waa dhacdo dhacday oo dhamaatay. She was here ida halkan ayay joogtay waay. Markii uu leeyahay simple future na waa wax mustaqbalka dhici doono waay. Ma fahanteen? Wax mustaqbalka dhici doono waay. She will be here halkan ay imaan doonta ama halkan ay ahaan doonta waa iyada. Progressive formna wuxuu ka hadlayaa wax goor hore dhacay laakiin weli socda aan dhamaanin. Marka wax goor hore bilowday oo weli aan dhamaanin ayuu ka hadlayaa asagana tense-kan ama dhacdadan wuxuu qeexayaa ficil goor hore la bilaabay laakiin aan weli aan dhamaanin. His unusual wuxuu ka hadlayaa qof macnaha aan caadi ahayn oo iska qaab daran oo kale ayuu ka hadlayaa. Marka hore kusoo bilaabatay wax cusub maahan weli still-na marka sidii waay qofkii. Marka perfective formigan waa dhacdo goor hore dhacday oo laakiin dhamaatay. Ma fahanteen? Sidaa darteed yani wax inta lagu soo koobi karo maahan. Web2b sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa auxiliary verbs verbabka la dhaho ficil caawiyaasha ah ayuu sidoo kale u noqdaa oo mar ayaa jirta asigoo ficil raacayo marka oo kaligiis aan istaagin. Hadda markii web2b uu yahay kaligiis ayuu istaagayaa ficil kale raaci maayo. Asiga ayaa wuxuu isku xirayaa labo magac ayuu isku xirayaa marka oo object iyo subject uu isku xirayaa. Hadda markuu web2b yahay laakiin markii auxiliary verbs uu yahay wuxuu la shaqeynayaa verbab kale ayuu la shaqeynaya wuxuu u yahay ficil caawiye ayuu xilligaas u yahay. Marka intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa sharaxaadii yareed ee ku saabsaneyd web2b-ga. Marka isku day inaad fahantid qaababka intaan isku badbadasho iyo ina magacyadadan aad kala fahantid qaababka ay u kala qaadanayaan xarfahan raacaya web2b-ga ah ee raacaya iyo marka ay waqtiyada ama tenseska marka ay joogaan sida isku badbedelaan oo ay mataqaanaa hadba formigooda isku badbedelo iyo waxa ay kala qaadanayaan. Marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Haddii aad su'aal aad qabtid talo iyo tusaale comment ka soo bixi insha Allah. Waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.